magaalada Jigjiga xarunta dawladda deegaanka Soomaalida waxa ka dhacay shir heerkiisu aad u sareeyo oo ay ku yeesheen xarunta madaxtooyada madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya ahna wasiirka maaliyadda dalka Itoobiya mudane Axmed Shide mas'uuliyiinta sarsare ee xukuumadda dawladda deegaanka Soomaalida iyo xisbiga dimuqraadiga shacbiga Itoobiya ayaa kulan ku yeeshay magaalada Jigjiga iyadoo looga wada hadlay shirkaasi arrimo dhowr ah oo ay ugu muhiimsanayd shirweynaha xisbiga oo la shaaciyay in la qabanayo dabayaaqada bishani hawlaha tirakoobka diyaar garowga deegaanka iyo sidii bulshada loogu wacyigelin lahaa inay u diyaar garoobaan marxaladaha kala guurka ee dalka Itoobiya kulankan ayaa si qoto dheer looga hadlay arrimahani waxaana si wada jir ah la isku qaatay in arrimahani xoog la saaro lana dardargeliyo mas'uuliyiinta ayaa waxay isla qaateen in arrimaha masiirka ummadda xoog la saaro gaar ahaan arrinta tirakoobka ma jiro xog rasmi ah oo ka soo baxday qaabka uu wajahayaan caqabadani iyadoo la shaaciyay in deegaano badan oo kamid ah dhulka Soomaalida lagu daray Oromada iyo Canfarta halka qaar kalena la sheegay in aan loo qoondayn tirakoobayaal kulankani oo muddo qaatay iyo gabagabadiisii waxa si wada jira mas'uuliyiinta hoosta uga xariiqeen inay kamira dhaliyaan hawlahan iyadoo shirweynaha xisbigana la qaban doono muddo yar kadib waxa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Cumar iyo gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga shacbiga Soomaalida Itoobiya mudane Axmed Shide kulankaasi kadib ay u duuleen dhanka xarunta dalka Itoobiya Addis Ababa halkaasi oo la sheegay inay ka sii ambaqaadi doonaan hawlo deegaanka khuseeya lama oga sababta ka dambaysa in madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar iyo wasiirka maaliyadda dalka Itoobiya ahna gudoomiyaha xisbiga ay u wada kicitimaan dhanka iyo magaalada Addis Ababa iyadoo la wada og yahay in Axmed Shide magaalada Jigjiga uu ku sugnaa oo kaliya wax ka yar 36 saacadood dadka siyaasadda deegaanka u dhundaleelay ayaa sheegaya in labada mas'uul ay u tageen si ay ula soo tashan lahaayeen ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya